waxaan doonayaa inaan ka yar bilaabo xagga midnimada ummad aan midaysnayn oo aan gacanta ishayn oo isku duubnayn adduunku waxba ma qabsan karto waqtigan maanta xaadirkeen joognay adduunka cusubna waan tiro badnahay ama se laandheeranahay waxba ma taraysee waxay ku xiran tahay sida aad isu qaban qaabiso oo aad hawl u gasho oo ujeeddo u yeelato midnimadiina markaa aad iyo aad baan idinkugu guubaabinayaa anigu Soomaali ahaan sharaf bay ii tahay inaad midoodaan idinkoo wada jira oo meel ka soo wada jeeda inaad noo timaadaan oo aad meel kasta ka muuqataan sharaf bay anigu ii tahay garabna waad ii noqonaysaan oo guul bay ii tahay marka aad baan idinkugu tahniyadeynayaa waxaanan leeyahay halkaasi ka sii wada aad baanad u mahadsantihiin waxaan ogahay taariikhda dadka Soomaalida inaad qayb weyn ka soo qaadateen rag badan iyo dumar badan oo wadaniin Soomaaliyeed oo naftooda u horay qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed ay ka dhasheen taariikh wad leedihiin markaa maanta haddaba arinta ugu weyn ee isugu nimid waxa weeyaan doorasho soo socota doorashadaasi cod baa lagu kala adkaanayaa marka waxaan idinka codsanayaa codkiina inaad xoojisaan oo soo badisaan oo hadhowto aad noqotaan cod lagu xisaabtama idinkana aad ku xisaabtantaan oo aad horumar ku gaadhaan dhaxalka aad ku leedihiinna halkan Kamkunji ee wadanka Kenya aad ku xoojisaan oo aad xididdo u yeeshaan ayaan marka tani intaan anigu xildhibaanka noqday aad iyo aad baan uga shaqeeyay sidii dadka Soomaalida ay iska qori lahaayeen halkan Kamkunji xagga ID-ga ayaan ku xoojinay ID-ga iminka xaafadda laga goostaa xagga kuurada iyo codka doorashada iyo diiwaangelintan xoog saarnay diyaar baanan u nahay anigu iminka inaad ku xisaabtantaan inaad xildhibaan idinku aad sheeganaysaan oo aad soo doorateen oo ku xisaabtamaysaan inaad Kamkunji ku leedihiin deegaan aad iska leedihiin oo aanad marti ku ahayn oo isli la yiraahdo Kamkunji ka tirsanna aad joogtaan oo aad idinku aad ku xisaabtamaysaan aad yeelataan waxa kale toon duqeyda halkan joogta aan ballan qaaday doorashada wixii ka dambeeya inaan isu nimaadno oo aad ku xisaabtantaan deegaan idinku aad leedihiin oo magaciina beel ahaan aad ku soo galaysaan aad yeelataan haddii hawl fiican aad samaysaan oo aad soo shaqaysaanna aad ku xisaabtami doontaan xildhibaanimada dambe maadaama aad dhaxal ahaan u soo hoyiseen inaad yeelataan oo markaa ku xisaabtami doontaan doorashada dambe ayaan anigu ballan qaaday marka isa soo ururiya isu imaada dhalinyaro badan oo idinka tirsan baan maqlay inay u taagan yihiin MCA-nimada Kamkunji waan soo dhawaynayaa soo dhawaadan leh laakiinse waa inaad kala reebtaan oo mid kaliya aad la soo baxdaan nin aad garab istaagi kartaan oo Soomaalida kalena aad kula xisaabtami kartaan waa inaad soo saartaan 2 nin iyo 3 nin oo isdaba ordayso wax faa'iido ah ama qiimo ay leedahay ma jirto marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad noqotaan sidii uu sheekha sheegay xubin waxtara oo dadka Soomaaliyeed ka tirsan garabna u ah horumarka Soomaaliyeed anigu xildhibaannimadaydu inkastoo aan anigoo sariir jiif oo isbitaal ku jira aad soo doorateen wax badan baa ka muuqda xaafadda wax badanna waan ka qaban lahaa haddii aanan waqti badan ku lumin takhaatiir iyo isbitaalla jidadka xaafadda isliiba ka soo qaadmid maalintii aad doorateen meel aan la mari kareynin oo dhiiqada oo gaari gacmeed lagu soo gudbay ahayd maanta jidadkeeda marka aad soo marto magaalo yar u muuqan tahay nalal baa ka shidan habeenkii oo waad socon inkastoo mushkilada askarta weli ay iska jirto laakiin sidii hore ay noogu soo degdegi jireen ma aha
cabsi baa ku jirta waxay og yihiin inaad xildhibaan leedihiin inaad wakiilo leedihiin oo laga dambaynayo waxaan ku tala jiraa inaan kaba tirtirnaba arrimahaasi xagga nabadgelyada ah iyo dhibka ay dadka nagu hayaan annagana aan nabadgelyadeena gacanteena ku ilaashano oo aanan nala soo dul iman dugsiyada Kamukunji horumar bay sameeyeen xagga kaleeto dhismaha kaleeto horumar fara badan baan sameynay waanan sii wadi karnaa waxaan jecelahay safarta dambe jidadka kaleeto noo haray inaan dhamaystirno oo isli laga garan waayo Dubai da Afrika ay noqoto waxaan xusuusnahay mar aan tagay Mareykanka magaalo Columbus la yiraahdo aan tagay oo si aad iyo aad u fiican oo walaaltinimo ku jirta la igu soo dhaweeyay qoyska aad ka dhalateen ay ku badan yihiin waxaa jira nin baa i weydiiyay wuxuu yiri maxaad ka qabanaysaa jidadkaasi deeqada marka khudbadan halka ka jeediyay waxaan isli ku tilmaamay inay tahay nin xaragoonayo tie iyo jacket intuu soo xidhay kobalaan dhoobada u socda waxaan ballan qaaday waxaan iri marka damboon idinku soo noqdo ninkaasi dhiiqada dhex socda kobaan u gelin doonaa baan iri kobaan u gelin doonaa haddaba isli iminka kobaha aad ku socotaan sidii berigii hore to dhiiqada uma dhex socotaan waanan dhammaystiraynaa wixii ka haray marka isa soo qora wixii dhalinyaro ah ID u baahan ii keena waan u soo dhammaynaynaa wixii ku sugta haysta ii keena deegaankiina waa Kamukunji marka la idin yiraahdo xageed ka timaadeen ha oranina meel kale aan ka nimid waxaad tiraahdaan anagu dhaxal baan ku leenahay Kamukunji baan ka nimid reer Isli baan nahay xildhibaankeenu waa Isli chiefna waan raadin doonaa haddaad dhalinyaro fiican aad idin soo baxaan chief baan idinkaga raadin doonaa Isli idin qora abtirka aad leedihiin idin qoro oo qolo kale idin qorin marka aad baad u mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa inaan galabtoo dhan idinla joogo laakiin waxaa jira waxyaalo badan oo waxaa la yiraahdaa home clearing waxyaalo badan oo aad doonaysaan inaad idinku isdhaafsataan oo laga fiican yahay xildhibaanka inuu idin dul joogo marka waxaan idin rajaynayaa shir fiican oo baraka leh oo faa'iido leh inuu idin dhaco waxaan rajaynayaa maanta wixii ka dambeeya wixii dhaliileed leedihiin hadda inaan maqlo wixii dhibaateed leedihiin inaan idin wadaago jidkana aan toos u wada qaadno anagoo wada jirno walaalaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadkaan waa reer Jubilee inay madaxweynaha arkaan bay waxaa diyaar baan u ahay anigu Jubilee baan ku jiraa ninka aan u ordaya in dib dambe loo soo doorto waa nin la yiraahdo Uhuru Kenyatta ninka Uhuru Kenyatta la tartamayo waa nin xisbi kaleeto hatta magaciisa inaan sheego mar rabe arrimaha ugu adag ee uu ku taagan yahay waxa uu yiri marka madaxtinimada Kenya la ii soo doorto Soomaaliya gobol baan u aqoonsanayaa oo Soomaaliya qaran jira ma aha Soomaali waa qabiila Somaliland baan aqoonsanayaa Chinichan baan aqoonsanayaa ninkaas ma ogolin inuu madaxweyne nooga noqdo wadankan annagu waxaan rabnaa haddaan nahay Kenya wadan jaara Soomaaliya mida Soomaaliya xoog leh oo daris fiican oo aan la gorgortami karno oo aan la simanahay inay dawladda Soomaaliya ay noqotaan rabnaa ma rabno Soomaaliya qoys u kala goosan oo gobol u kala go'an ma aqoonsani anigu taasi haddaan Yuusuf ahay Soomaaliya mid oo qaran ayaan aqoonsanahay marka ninkaasi inuu madaxweyne wadanka ka noqdo raalli ma ka tihiin midnimada Soomaaliya madaxweynaha aqoonsan Soomaaliya inaan dooranno ninkaasi waa Uhuru Kenyatta iyo Jubilee waan idin geynayaa Jubilee baan dareeskeeda xiranaynaa dawladda dambaad ka noqonaysaan qayb ka mid ah mucaarad kama noqonaysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh